marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan saxaafadda Puntland meel kasta ay joogto iyo dadweynaha reer Puntland dhammaantiis waxaan leeyahay Ramadaan Kariim waxaan rabaa warbixinta aan kooban waxaan rabaa halkan inaan ka bixiyo shaqaaqa xalay ka dhacday tuulada Afurur ee Soona Galgala oo nimankii sharwadayaasha ay soo weerareen oo halka ay yimaadeen halkaas ciidamada dawladda ay ku jabiyeen sharwadayaasha baraha wararkana ay hadda dhigeen waxaan u leeyahay ciidan inta leeyahay baata inta leeyahay baan geysanay waxa ay sheegayaan wax ka jira ma jiraan dadka ay laayeen ama ay dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacab ah odayaal haween caruur bay u badan yihiin oo hadda dhaawacoodii la hayo oo isbitaalada la keenay ciidamada dawladdu way iska difaaceen nimanka sharwadayaasha oo bisha Ramadaan oo barakeysan dadku cibaadeysanaya dhiiga muslimiinta raba inay ku cibaadaystaan raba oo gaalada ah waxa way ciidanka dawladda Puntland waligiisna way iska difaaci jiray haddana way iska difaacay firxadkoodii wixii laga laayay wixii kale ciidamada dawladda hadda inay ku daba jiraan waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay ka dhigo si maartay dhaqsaa in loo soo afjari doono bisha Ramadaan waxaan kale u sheegaynaa dhammaan ciidamada Puntland meel kasta oo joogaan inay u diyaar garoobaan nimanka sharwadayaasha oo gaadiidka soo raacay oo xuduudaha iyo maxaan ku sheegaa meel kasta maartay ka soo galaya xadadka Puntland qodob kale waxaan rabaa inaan ku darsado oo amniga guud ee Puntland aan ku darsado iyadana dadweynaha reer Puntland waxaan leenahay nimanka sharwadayaasha ay mar walba waxay dhibaateynayaan ma ciidanka dawladda mana madaxda dawladda waxay dhibaateynayaan maatada dadweynaha reer Puntland kuwa qaraxyo lagu qabtay hadda koor waxay yiraahdeen xagee qarax u wadaan baaliye qarax waxay yiraahdeen meesha dadku ugu badan yahay ama suuq ha ahaato ama hostal ha ahaato ama hotel ha ahaato ama iskuul ha ahaato mar walba meesha dhiiga dadka muslimiinta ugu badan yahay ayaan inaan dhiig keeno ama aanu leyn aragna baa laga hayaa kuwaan hadda qabanay oo lagu guuleystay ciidamada ku guuleysteen waligood sharwadayaashu wayna soo weerari jireen wayna soo aadjeen wayna nagu khasaari jireen haddana waxaan rajaynaynaa firxadka ka haray inta ka hadhay wixii la laayay ma inta ka hadhay inaan dib u soo qaban doono ayaan rajaynaynaa soo afjari doono haddii Ilaahay ka dhigo bal waxaa noo sharaxdaa sida waxay u dhaceen dagaalka sidoo ku bilowday walaal dagaalka sidoo ku bilowday waan idin sheegay waxaan ku yiri nimanka sharwadayaasha ummadda bil Ramadaan ku jira difaac ku jira ay soo weerareen dagaalkana waxay ka bilaabeen tuuladii magaalada ahayd ciidamadu ay deganaan bay dagaalka ka bilaabeen waxa ilaa waxa ugu horeeyay odayaashii iyo dadkii maatada ah ugu horeeyay ciidamada iyagana way istagaaleen ka bacdi meesha ciidamada soo gaareen ciidamada way iska difaaceen meel dagaal ka dhaco mar walba waxa way ka dhacaya laakiin khasaaradooda aad iyo aad ay u badan tahay firxadkoodana waa la keenayaa dagaalka baraha al-shabaab waxay ku qoreen inay dileen dhixili kuwa askari Puntland ka tirsan sidoo kale wadada deegaanka laga helayna waxay sheegayaan dad shacab inay laayeen marka khasaarada dhabta ee halka ka dhacday ka dawlad ahaan maxaa ka sheegi kartaa sharwadayaashu mar walba waxay sheegtaan dad Soomaali oo Islaam oo badan ay laayeen bay mar walba sheegtaan waana la socotaanay marka anagu qof sheeganaya qof muslim dhigiisii baan badiyay ama qof muslim baan dilay oo maato u badan isaga u taa laakiin waxay sheegayaan wax ka jira ma jiraan waligood bay sheegi jireen arrintaas waana meelayaal weyn nimankaas arrintan inta waqti badan ay soo noqotay inta badanna kooxaha al-shabaab waxay geystaan weeraraha marka wasaaradda ahaan arrintaas qorsheyn ka yaab ma jira adeer waa ogtahay shabaab waligood Puntland dhibaatay ugu soo diyaar garoobaan laakiin waxaad ogaan ka dhaanama mar walba la socotaan mar walba in laga adkaado oo la jabiyo oo waxay la yimaadaan lagala haro meedkooduna uu maartay darbiyada warnaado ayaa mar walba dhacdo marka waligoodna naga faa'iido haddana naga faa'iidmaya sababtaan waxaan dad muslimiina oo sooman oo difaac dalkooda uga jira cid kastoo soo weerarana waxay naga faa'iideysan ma jiro wasaaradda dawladda wasiir ay gaarsiisay ururka shabaab ee weerarka soo qaaday jaamada waa intee wali hadda halkan kama sheegi karo laakiin dib baan ka soo cadeyn doonaa khasaarada la gaarsiiyay laakiin way badan tahay khasaarada u badan tahay wasiir ma jirtaa in al-shabaab ay gacanta ku dhigeen tuulada Afur waxba kama jiraan wax ka jira ma jira ciidamada dawladda joogta meesha wax ka jiraan ma jiraan howlgal baa jira dawladdu ay ku baxsanayso qoyihii Afur soo galay oo dib uga baxay waxaana jiray in ay sheegteen in ay gaadiid badan gubeen arrintaasi maxaad nagala wadaagtaa way iska hadlayaan waftooga wuxuu doon ku hadlaa oo tabar lahayn marka dawladdu way ka tabar weyntahay intaas iyo ciidamada Puntland howlgalka dambe maxaad wasiir nooga sheegay arrinta halkan kama sheegayo waxa weeye howlgalka waa arrin dawladeed weeye iyada go'aamadeeda loo gaaraysa arrintaas